toban waxyaabood oo aanad ka ogaan oo la yaabsid xiddiga kubadda cagta ee Cristiano Ronaldo. Fiidiyogan waxaad ku soo bandhigayaa siro iyo xaqiiqooyin aan ogeyn dhammaan dadka ku saabsan xiddiga caanka Cristiano Ronaldo iyo siraha noloshiisa iyo xiriirka la dhexeeya laacibka reer Argentina iyo Lionel Messi. Qodobka koowaad wuxuu shaqaystaa halka daqiiqo lacag dhan €40 waxay ka shirtay warbaahinta waddanka Spain in laacibku uu ciyaaro kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo inuu heshiis la galay naadigiisa ilaa sanadka 2020. Heshiiska qiimihiisu wuxuu kacay €20 milyan oo u dhiganta halka daqiiqo €40.5. Qodobka labaad xiriirka la dhexeeya Messi. Kasoo horjeedka dad badan waxay aaminsan yihiin in labadan laacib ay isu yihiin cadow aad u daran, laakiin saa ma aha oo labadan laacib waxa ka dhexeeya loolan adag waxa kubadda cagta wax cadaawad dhexdooda ma taalo. Qodobka saddexaad Cristiano kuma sawir calaamadaha loo yaqaan tattoo oo ciyaartoyda inta badan isku sawiraan jirkooda maadaama uu Cristiano Ronaldo uu leeyahay caado sanadle ah oo ah inuu sanadkiiba hal mar dhiig bixiyo, sidaa daraadeed kuma sawir jirkiisa wax tattoo ah. Qodobka afraad oo ah inuu qalimo badan oo qurxina Cristiano galay, sidaa darteed dad badan ayaanay fahansaneen qallimadan uu galay oo ku khiyaameeyay. Sida haddaad aragtay sawiradiisii waagii uu yaraa iyo hadda ay soo eegtid waa sawiro ay farqi badan u dhexeeyaan oo aad ka arki kartid inuu wax qalliina galay. Qodobka shanaad oo ah inankiisa hooyadiis oo aan la garanayn ilaa hadda muusan sheegin Cristiano Ronaldo hooyada dhabta ay dhashay inankiisa kaliya ee uu leeyahay Junior. Qodobka lixaad Cristiano wuxuu galay qalliin da'diisu markay 15 sano. Qalliinka wuxuu u galay xagga wadnaha laakiin nasiib wanaag xukum muusan noqon, taasina waa qodob aan dadku in badan aan ogeyn. Qodobka toddobaad wuxuu caawiyo kuwa baahan fuqarada sida loo ogyahay Ronaldo inuu caawiyo hay'ado badan si ay u caawiyaan faqiiriinta iyo carruurta gaar ahaan halkaas oo ku tabarucay kabihiisa hay'adda Real Madrid ee khayriga ah mu'asasada Real Madrid al-Khayriyya, taasoo keentay inuu ka dhiso Falastiin tiro badan oo iskuul ah. Cristiano qofka sidaad gaarka leeyahay u khaaska ah ma cabo wax khamriya mana cabo sigaar. Wuxuu ku barbaaray Ronaldo ilaa yaraantiisa inuu ka fogaado labadan shay ee xun waana ta keentay inuu yeesho calool si fiican oo caafimaad qabta. Qodobka sagaalaad wuxuu leeyahay masrax fogaara. Cristiano wuxuu dhistay naftiisa u dhisay masxaf u khaas ah wuxuuna faray sanadka 2016 bishii January wuxuuna ku yaalaa madaxda jasiiradda Madeira waana halka ku soo barbaaray Cristiano Ronaldo. 10 wuxuu leeyahay gawaari badan oo qaali ah. Ronaldo wuxuu leeyahay tiro badan oo gawaari qaali ah waxaana tirada gaartay ilaa 19 gaari waxaana ugu miisan gawaarida uu leeyahay gawaarida la yiraahdo Lamborghini, Ferrari, Bugatti iyo gawaari kale badan. Cristiano Ronaldo wuxuu galay shil laga joogstay sanad ka hor laakiin nasiibkiisa wax kuma noqon wuxuuna ku galay shilka magaalada la yiraahdo Manchester. Maanta intaas ayuu soo bandhigay insha Allah taala mawduucyo badan oo muhiim ah oo xiiso gelin doona soo bandhigaya si dhiirigelin igu noqoto aniga nafteedana waxaad ka codsanayaa subscribe haddii fiidiyoga cajabinayna like saar. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.